waxaan salaamayaa shacabka Puntland anigoo magacaygu yahay Siciid Cali kuna magac dheer Qorbaawi dan eego ama dib ugu noqdo su'aashaad weydiisay xiriir badan baan la sameeyay waxyaalaha ka jira deegaanada bal intaanan se ka hadlin waxyaalaha ka jira deegaanada dee horeyba uga jireen waddanka haddaan anigu ka imi waddankana meelo badan baan soo maray caasimadii gobolka baran ama haddaan idhaahdo baran oo kale oo deegaanada magaalada ugu weyn ay tahayba isbaaro somalilanaa taalla ciidan somalilanaa jooga anigu isbaaradaa waan dul istaagay oo ilaa 15 daqiiqo sugayay askarigii qaadayay oo somaliland xaggeeda ka soo jeeday marka maadaama ay horeba u joogeen deegaanka oo ay caasimadiiba isbaara u taalo waxa maanta loo qaylinayo oo looga qaylinayo yubaaciiday mid anigu ma garanayo baroorta orgiga ka weyn ma garanayo taa laakiin waa dad deegaanka u dhashay oo magac Somaliland wata soo lisma dhihi karo kuwan baran jooga mar haddii magaca wataan inay yimaadaanba ma ahayn ba hadday yihiin dad shaqo tegay sida aan maqlaayay waraysiyo waa dad shaqo tegay hadday yihiin dad shaqo tegay meesha ay u shaqo tegeen inay la joogaan bay ahayd laakiin inay la yimaadaan caasimadda oo caasimadii isbaaro dhigtaan oo calankii meesha keenaan oo ciidamo u joogaan oo guri weyn uga dhisan yahay oo calankii ku xadhan yahay oo isbaaro u taalo taas shaqo tag lama oran karo waxaase kaloo la yaabay guddoomiye ciyoon marka uu ka hadlaayay ciidanka Yube lagu sheegayay markuu ka hadlaayay de waxay hore inuu ga hadlo isbaaradan barantaala inuu ka hadlayahay waa gartay isbaaradan baranta taala inuu ka hadlayahay dabadeedna uu ka hadli karaa Yube anigu ma soo dhaweynayo in ciidan Somaliland ay yimaadaan Yube ama baran ama xingarool midnaba ma soo dhaweynayo anigu nin Puntland daraana hayaan loo qaadan inaan Somaliland af ku hadlayo waxaan ku hadlayaa afkii Puntland laakiin sheekadu hadday noqoto hilibkana waan cuni aqaanaa maraqaan ma cabayo ama maraqaan cabaya oo hilibka cuni maayo dee anigu ma garan waxa looga jeedo arrintaa waa yahay caare sidaad la socoto waa jenaraal ka soo goostay Somaliland jabhadna wata ninkaasi joogitaankiisa Puntland mas'uuliyiin kala duwan baa ka hadlay oo waxa loo sababeeyay inuu dabcan doonayo Puntland sidoo gacanta ugu qaban lahaa arimahaasi adigu qurbaawi ahaan maxaad ka dhihi lahayd arrimaha caale haddaan yartaataa waa inay Puntland aaminsan tahay oo caleemasaarkii madaxweynaha Siciid Cabdilaahi Dani baanu wada joogno isku laba kursi oo isku xigaan ku wada fadhinay caleemasaarkii madaxweynaha Puntland arrinta caare waa nin aaminsan Somaliland laakiin ka soo xanaaqay Muuse Biixi aniga caare iyo Muuse wada iiguma kala duwana way isu kaymid marka inuu halkaa joogo ama halkaas saldhig looga dhigo dee wax xun bay ahayd maba wanaagsanaynba mana soo dhaweynayo haddana waxa aan ku talinayaa caare in sida ugu dhaqsaa badan Puntland talaabo qaado caare meesha ka tago caare wuxuu aaminsan yahay Somaliland wuxuu muusun buu dagaal kula jiray waa Somaliland darweeye dhibaatooyin badanna waa ka geystay deegaankaas qaabooyin badanna waa ka geystay caare joogitaanka halkaa joogo ma soo dhaweynayo waa yahay ciidamada Yube tagay waxay ka yimaadeen dhinacaas iyo Somaliland kuwa barar ku suganna waa dadkii deegaanka maxaa farqiga u dhaxeeya wax farqiga u dhaxeeya anigu ma garanayo mar haddayba labaduba tuuta Somaliland sitaan calankiina sitaan wax farqo u dhaxeeya ma garanayo adaa ii sheegaya waa yahay marka maxaa xalku ku jira imika xaaladdu way kacsan tahay dagaal inuu dhaca qarka loo saaran yahay adigu talaadaba waxay tahay in marka hore baran laga saaro kuwa Somaliland ee ku sugan mise Yube in laga bilaabo ariga waxay ila tahay marayga
ra'yigaygu uu yahay in ama baran ha joogo ama yuba ha joogo ama xingalol ha joogo in laga wada saaro laga wada mamnuuco gobolka wax magacaaba sheeganaya laakiin anigu waxaan garan waayey guddoomiyaha gobolka oo baran jooga waa ka soo jeedaa baran oo waa Somaliland buu guddoomiye u yahay taliyuhu Somaliland oo baran buu joogaa ka Puntland bay is ag fadhiyaan oo isla baran buu joogaa okay halkaa waxbaa ka jiray anigu marka hore waxaan oran lahaa intaan la qaylqaylin dadka deegaanka degan ee ha tashadaanoo ama dee Puntland si fiican ha wada noqdaan ama masiirkooda ayaa garanaya ha tashadaan baan oran lahaa laakiin hadda waxaan socdaa waa ruwaayad baan anigu u arkaa waxaan kaloo ku darayaa oo oranayaa mar dhoweyd waxa aan dhegaysanayay garaadkii guud oo deegaanada ka soo jeeday waxaan islahaa garaadku deegaanadu way u siman yihiin dadkuna way u siman yihiin laakiin hadalkii maanta aan ka maqlayo oo ahaa meel la yidhaahdo yube oo lagu sheegayay in ay ka tirsan tahay sanaag baa nimankaa lagu sheegayey hadalkaasu hadal garaad ma aha afkaa garaadkana xaal baan ka siinayaa dadka deegaankaa degan horaa waxaa loo yidhi aan ku daro kelmadda hadal yeelkaba waa la caddeeyaa waxaan leeyahay Somaliland meel kasta ay joogaan meel ayaan hoosta la gashan meel ayaan tooshka lagu ifin dhammaantood wixii sheeganaya ha laga wada saaro ugu dambayn adigoo aad u mahadsan maxaa la quman dowladda Puntland waan ognahay inay cusub tahay madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada iyo dadka deegaankaas sidee uga mid noqon karaan Puntland oo qura iyadoo ogsoonahay in laba guddoomiye laba taliye ay ku sugan yihiin baran iyo deegaano kaleba oo sanaag ka tirsan maxaa la quman dowladda Puntland waxaa la quman inay hoos wax u fiiriso oo hoos wax u eegto hadal iyo ilkaba waa la caddeeyaa aniga qurbawi ahaan kula hadlaya waxaan ka soo jeedaa ama deegaankaygu uu yahay hadaaftimo ilaa yubelaa ceergaabo inta u dhaxaysa bad iyo berri baan degaa Puntlandna wax allaale waxa aan oran karo maanta waa lagu haystaa oo dadka deegaanka ballaaran degan ay ku haystaanna ma jirto waxaan leeyahay Saciid Cabdilaahi Deni madaxweynaha sharafta leh waxa aan leeyahay hoos wuxuu fiiri oo dadka deegaanada degan ilaa halkaa ilaa xeeb ilaa berri degan dadka deegaanka degan waxay la mid yihiin dadka degan gaalkacyo oo kale dadka degan iyo dadka degan aagaa labaduba furin bay ku jiraan waa in hoos wax loo eegaa xaqooda la siiyaa tusaale ahaan haddaan wax yar soo qaato dadka intaa degan oo ballaarkaa leh oo xeeb iyo berriba degan hal xildhibaan kuma laha Puntland kuma laha hal xildhibaan wax allaale waxay kaloo ka helaanna ma jirto keligoodna maahee dad badan baa jira oo ay ka mid yihiin beesha kale oo iyadana degtaa ilaa shimbiraale ilaa dawaco oo beel ballaadhan ah oo deegaan ballaaran haysa oo halkaa markay dhibtu timaado ay dhibta ugu badani ka dhacdo oo waa meelaha furinta wax allaale waxay Puntland ku haystaan ma jirto MCH kuma haystaan iskuulla kuma haystaan wax ka allaale waxay ku haystaan magacuun bay ku dhimanayaan waxaan leeyahay madaxweynaha wixii hore dhacee bal hadda hoos wax u fiiri wax badan baa khaldan gobolka sanaag kelmadan la yidhaahdo sanaag barinaan waan ka soo horjeedaa gobolka sanaag baan leenahay dadkan isticmaala afka sanaag bari anigu waan ka soo horjeedaa waxaan leeyahay madaxweynaha waa nin aad iyo aad u culus waa nin aan aqaano waxaan leeyahay hoos wax u fiiri wax badan baa ka khaldan gobolka